sharcigan wuxuu nidaaminayaa sharciyeenaya dib u qaabaynta hanaanka maamulka iyo hoggaanka ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda federaalka Soomaaliyeed awoodeeda iyo waajibaadkeeda si waafaqsan qodobada 8 iyo 54 ee dastuurka kumeel gaarka. sharcigan wuxuu ka kooban yahay 34 qodob. dib u habeynta hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda wuxuu qeexayaa astaanta iyo calanka hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda, awoodaha xubinta ka tirsan hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda, mas'uuliyadda iyo waajibaadka hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda, horumarinta iyo fududeynta dhammaan adeegyada la xiriira socdaalka iyo jinsiyadda, bixitaanka kaararka aqoonsiga heer federaal, noocyada dukumeentiyada safarka ee dalka uu leeyahay, dalku gal, dalku jooga iyo deganaanshiyaha, ilaalintii kontaroolada irdaha laga soo galo loogana baxo dalka sida eerboorada iyo xuduudyada, hubinta baarista xaqiijinta dukumeentiyada socdaalka iyo baasaboorka soo galaya ama ka baxaya dhammaan irdaha iyo baraha xuduudada kontaroolka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Mudane Gudoomiye, hay'addu waxay yeelanaysaa sharci nidaamiye iyo sharci hoosaad u gaar ah oo lagu dhaqangelinayo sharcigan iyo qaabka shaqo fulinta howlwadeennada, waxaana soo saaraya wasiirka amniga gudaha xeer hoosaadka ay ku shaqayn doonto hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda marka uu ka helo talo soo jeedinta agaasimaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda. qaab dhismeedka guud ee hay'addu waxay yeelan doontaa qaab dhismeed maamul ee hoos ku faahfaahsan, waxaana ay ka kooban tahay agaasimo guud, 2 agaasimo ku-xigeen, agaasimo waaxeedyo, agaasimo laameedyo, madax xafiisyo, kormeelyo iyo howlwadeenno. Mudane Gudoomiye, haddaan taariikh hore aan dib u raacno 2011 waxaa wasiirka markaas uu joogay ku soo saaray dekreeto isagoo kaashanaya ra'iisul wasaaraha xilligaasi ku joogay 2011 inay ku shaqeyso magac waaxid ku shaqayn jirtay. 2016 wasiirka aniga ku soo horeeyay wuxuu ku soo saaray xeer wasiir ah magaca hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda. Mudane Gudoomiye, waxaan rabaa xildhibaanada sharafta leh 2 sharci soo gudbiyay iyo sharci kale oo hadda agtaada yaalo oo ah habka booliiska federaalka iyo 2 sharci aqrinta hore aan ka aqriyay isbuuci hore iyo sharcigan hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda. wax badan ayaa nooga xayiran, waqtigana waa gabaabsi. waxaan rabaa in si gaar ah ula dardaarmo guddi hoosaadka arrimaha gudaha iyo amniga inay noo dardargeliyaan waqtiga nooga faa'iideeyaan. Mudane Gudoomiye, aan waqti badan cunaynin, waxaan rabaa halkaas inaan ku soo koobo wixii dheeraadna uu ku soo daro agaasimaha hadduu talo soo jeedinayo. haddii kalena annaga waa naga intaas. waxaan rabnaa in arrintan nala dardargeliyo oo hadduu Ilaahay yidhaahdana mar dhow nala ansixiyo.